anigoo magaca shirkadda Beko magaceeda ku hadlaya, magaca shaqaalaha, magaca milkiilayaasha, magaca boorka, magaca maamulka anoo ku hadlaya, waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeedna gaarsiiyo lana qaybsado tiraanyadii naxdinta lahayd culayska badneed dhimashada iyo dhaawaca lahaa inaan la qaybsado ummadda Soomaaliyeed inteeda kale. waxaa shirkadda Beko masiibadaas meesha ka dhacday shaqaalaheeda maamulkeeda ay u soo qoondeeyeen ama u arooriyeen lacag dhan $70,000. waxaan aan ugu talagalnay dadka ku jira isbitaallada, waxaan ugu talagalnay dadka ay masiibadu sida gaarka ah u taabatay ee ayagu ay ku waayeen ehelkoodii, carruurtoodii ama waalidkood. waxaan ugu talagalnay in waxqabadka Beko ay qayb kaga tahay in adeegii koronto meeshaas ka baxay in la soo celiyo, bilowgiina mugdigii meesha ka dhacay shaqadii ka socotay ee gurmadka in maxaa la yidhaahdaa iftiin ay ku hesho meeshaas. lacagta $70,000 qaybahaas ay kala aadayso waxaa ka mid ah guddiga gurmadka qaranka oo qaybta lacag ka mida loogu yaboohay maantay akaankoodana lagu shubay. waxaa ka mid ah isbitaallo qaar oo aan soo booqannay noo dhiman shakhsiyaad ama dadkii meeshaas masiibada ku geeriyooda qaarkood.